ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. waxay ahayd maalin aad u farax gelisay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ka joogaan dunida kadib markii tartan caalami ah Qur'aan Kariimka lagu qabtay magaalada Dar es Salaam ee dalkaasi Tanzania oo kaalinta koowaad ka galay Maxamed Cabdullaahi Aadan oo ah wiil Soomaaliyeed oo da'diisu aad u yar tahay. wiilkaas ayaa la guddoonsiiyay markii uu guuleystay lacag iyo abaalmarino aad u qaali ah. السابق الأول الفائز البطل اليوم الشاب من الصومالي محمد عبد الله عدن. tartanka Qur'aan Kariimka ayaa waxaa ka soo qayb galay in ku dhow 20 dawladood oo Afrika ka kala socday waxaana soo qaban qaabiyay tartankan caalamiga ah Qur'aan Kariimka Sheekh Cabduqaadir Maxamed Axmed Al-Ahdali oo ah aasaasaha markaska Al-Xigma xaruntiisu tahay magaalada Dar es Salaam ee dalkaasi Tanzania. isbartiwada ama garoonka kubadda cagta Dar es Salaam qaadaha 25 qof dadkii way buuxiyeen. sanadkii kan ka horeeyay sidoo kale meeshaan ku qabanay laakiin sanadkii ka horeeyay dadkii buux dhaafayay oo dad kala bar ayaa noqday oo kuraas waayay. xaqiiqatan waxa markaas dawladda ka dalabnay garoonka kubadda cagta ugu weyn oo qaada 65 qof in la siiyo dawladda wayna siisay. waagii bilaano waxa uu qabanay Tanzania gudaheeda kaliya kadib fikrada ay timaaday inaan u qabanno Kenya aan macnaha ka qayb galino Kenya iyo Tanzania iyo Uganda kadib waa ku darnay xaqirna 5 dawladood kadib sanadkii ugu horeeyay 9 dawladood ay ahaayeen. sanadkan waxaan ku darnay 6 dawladood sanadkan waxay ahaayeen 15 dawlad ay ahaayeen. waxaan u hambaleynayaa shacabka Soomaaliya meel kasta ay joogaan waan u hambaleynayaa waxaan ugu hambalyeynaya horta waxay tahay wiilkaas Soomaaliga ah ku guuleystay meesha magaca Soomaaliya ayuu sare u qaaday. waxaa Ilaahay ka baryaa subxaanahu wa ta'aala waalidiintiisa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu maalinta qiyaama taaj inuu u xiro. tartankan ayaa waxaa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Tanzania Kassim Majaliwa qaar ka mid ah wasiirada iyo xildhibaanadaas dalkaas Tanzania. waxaa kaloo ka soo qayb galay madaxweynihii hore ee dalkaasi Tanzania Xaaji Cali Munye diblomaasiyiin ka kala socda safaaradaha oo ay ka mid tahay safaaradda Soomaalida ee dalkaasi Tanzania. konsulka safaaradda Soomaalida u fadhiya dalkaasi Tanzania mudane Cabduqaadir Maxamed Yuusuf Burgal iyo qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ayaa u tahniyadeeyay Maxamed Cabdullaahi oo ahaa wiilkii ku guuleystay. Cabdifataax Jaamac Universal TV Dar es Salaam Tanzania.